askarigan oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya ayaana la sheegay in saacadii ayna soo dhaafnay uu dhac uu ka geystay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir sida ay muujiyeen shaashadaha ay kaamirooyinka oo duubay askarigan oo lagu magacaabo Mustaf Aadan Lawaliban Mustaf Aadan ayaa ku eedeysan dhac isku xigxiga uu ka geystay degmooyin dhowr ah oo ku yaala caasimadda magaalada Muqdisho isagoona goor gabdho badan ka dhacay moobil kaamirooyinkan ay soo qabteen ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaaraan saldhigga degmada Hodan ayaana gacanta ku dhigay eedeysanaha dable Liban Mustaf Aadan oo ku eedeysan dhac isku xigxiga uu ka geystay dhowr degmo oo ka tirsan caasimadda eedeysanaha ayaana ku jira haatan gacanta booliiska waxaan loo gudbin doonaa sida booliiska gobolka Banaadir ay sheegeen maxkamadda ku shaqada leh in sharciga lagu waafajiyo booliiska Soomaaliya waxa uu bulshada Soomaaliyeed uu ku wargelinayaa in haddii dhac ama fal amni darro ay la kulmaan in si degdeg ah u tagaan saldhigga ugu dhow si ay u wacaan nambarka 991 si tilaabo degdeg ah loo qaado dadka falalkaas fulinaya ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay booliiska Soomaaliyeed dhanka kale isla booliiska Soomaaliyeed ayaa waxay ku wargeliyeen shacabka iyo darawalada mootada feekonka loo yaqaano in aysan qaadi karin wixii maanta ka dambeeya askari ka tirsan ciidanka dawladda waxaa lagu wargelinayaa dhammaan ciidamada ka tirsan hay'adaha amniga inaysan la ogoleen isla markaana ay mamnuuc tahay in askari hubeysan uu isticmaalo mooto feekon sidoo kalena gudaha caasimadda lama ogol in askari hubeysan oo shaqo aan ku jirin lagu arko isagoo saaran mooto feekon askariga ka dhaga adeega awaamirta hay'adaha amniga waxaa laga qaadi doonaa tilaabo adag oo sharci waafaqsan ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay booliiska Soomaaliyeed